Salaamu calaykum saaxiibayaal. Ku soo dhawaada muuqaal muhiim ah oo aan diirad ku saari doono sababta ay Soomaalida ugu badan ee qurbaha ku nool ay ugu nool yihiin dalka Kenya. Intaan barnaamijkeena u guda galin, fadlan like saar muuqaalka, channelkana subscribe saar oo ku soo biir mahadsanid. Tirokoob ay sameysay shirkadda UNHCR sanadkii 2021, Soomaalida Kenya ku nool ayaa lagu qiyaasay inay kor u dhaafayaan 3 milyan oo ruux. Iyadoo la filayo in tirada intaa ka badnaan karto maadaama Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin gobolada aan aad ku horumarsanayn. Soomaalida ugu badan ee ku nool dalka Kenya ayaa degan magaalooyinka kala ah Mandera, Wajir, Garissa iyo Webiga Tana, iyadoo in ka badan 500,000 oo Soomaali ah ay ku nool yihiin caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Soomaalida degta dalka Kenya waxay u kala baxdaa 2 qaybood, kuwaas oo kala ah Soomaali qarniyo badan ku nool dalka Kenya, gaar ahaan magaalooyinka xuduudka la dalka Soomaaliya sida Mandera, Wajir, iyo Soomaali u qaxday dalka Kenya kadib burburkii dowladii dhexe iyo dagaalkii sokeeyay. Magaalada Islii oo ah magaalo ganacsi ahna mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu weyn caasimadda ay Soomaalida aad u degtaa, waxayna ku leeyihiin ganacsiyo kala supermarketyo, dukaamo isugu jira dhar iyo electronics iyo maqaayado. Ahmed Naasir Cabdullaahi oo ah ninka ugu taajirsan Soomaalida ku nool dalka Kenya ahna mid ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha dalka Kenya, sidoo kale ahna bukaata xaliyay geesas waaweyn, ayaa ka mid ah Soomaalida aadka looga qadariyo dalka Kenya. Soomaalida ayaa xiriir kala duwan ka haysa dowladda Kenya maadaama ay qayb ka yihiin qowmiyadaha dega waddanka, waxayna leeyihiin 8% kuraasta baarlamaanka. Sidoo kale mid ka mid ah heer ilaaliyaasha ugu sareeya waddanka Kenya ayaa ah nin Soomaali ah. 2014 bulshada Soomaaliyeed ayaa wajahday cunsurinimo iyo caqabad xoogan ay kala kulmeen dowladda iyo shacabka Kenya, kuwaas oo ay sabab u ahaayeen nacayb ay shacabka Kenya u qabaan Soomaalida, iyagoo ku aana sheeganayay in dadka Soomaalida oo dhami ay yihiin argagixiso. Kadib arrintaas, Soomaalida ku dhalatay dalka Kenya ayaa ku adkaatay inay qaataan kaarka dhalashada iyo baasaboorka waddanka iyadoo lagu dhibaateeyo ama lacag badan looga qaato. Soomaalida ku nool caasimadda dalka Kenya ee Nairobi ayaa u kala baxay qaybo badan, kuwaasoo ku kala jira waxbarashada heerarkeeda kala duwan sida high school, bachelor degree iyo master's degree. Waxaa jira qayb dhoof ah oo u jooga waddanka si ay uga sii tahriibaan ama ay uga safraan maadaama dalkeena Soomaaliya aysan ku oolin safaaradaha wadamada Yurub iyo wadamada Koonfur iyo Waqooyi Ameerika. Sidoo kale waxaa jira qayb famil ahaan u jooga kana ganacsada kuna nool magaalada Nairobi. Daawada, haddii uu ku cajabiyo muuqaalkan, fadlan nagu soo biir oo channel subscribe saar, gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee warbixinteena ay gaarto. mahadsanid.